waxaa dhici karta noloshaada inaad la kulanto dad dhaqamo ah, laakiin su'aasha muhiimka ayaa waxay tahay dadkaasi sideen ku ogaan karaa. Warbixinteena maanta waxaan kaga hadli doonaa 5 heer oo aad ku garan karto dhaqanka. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe gambaleelka taabo rukumo si ay ku soo gaaraan warbixin kasta aan iga soo gelino insha Allah. Heerka koowaad, inta badan dadka oo dhan ayuu yareystaa oo uu dadaalkooda xaqiraa. heerka labaad, dhaqannimada qofku waxay ka madaxbanaan tahay astaamaha kale ee shakhsi ahaan oo uu qofku leeyahay. heerka saddexaadna wuxuu yahay shakhsiga dhaqanka ah waxa uu qasaare u geystaa naftiisa iyo dadka kale. heerka afraad wuxuu yahay inta badan dadka aqliga badan wuu xaqiraa, waana awoodda waxbaabi'inta ee gacanta dhaqanka ku jirta. Warbixintan maanta waxaan ka soo turjubnay buug la yiraahdo The Basic Laws of Human Stupidity, heerka asaasiga ah ee lagu garto dhaqamada, waxaana buugan qoray Carlo M. Cipolla. wuxuuna kaga hadlay dhowr arrimood oo muhiim ah, laakiin waxaan ka soo xalanay 5taasi qaybood aan idin soo turjumay. qoraaga waxa uu isku dayay inuu xeerar u sameeyo dhaqannimada. waxa uu buuga sameeyay sanadkii 1976. qoraaga ayaa aaminsanaa sida dunida ay ugu socdaan fasiraysa dhaqamadeeda aadanaha ay ugu socdaan xeerar gaar ah oo uu tilmaamay. xeerarka uu ku tilmaamay xeerarka asaasiga ah ee dhaqannimada qofka lagu garto.